dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kastoo aad joogtaan maanta taariikhdu waa 7 bisha 2017 waa maalin ka hor ama saacada ka hor intaanay qabsoomin doorashada madaxweynaha Soomaaliya ku beegan oo lagu wada inay qabsoonto maalinta Arbacada ee berri 8 bisha 2017 musharaxiin 23 ayaa u sharaxan ilaa iyo hadda lama yani jari karo ama lama ogaan karo ka soo bixi doona balse haddii aynu wax ka taabano xaaladda guud ee magaalada Muqdisho 24 saacadood ee soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa la hakiyay isu socodka gaadiidka oo ilaa iyo imika hakad ah oo yani la fasaxayo gaadiidka ay dawladdu muxuu ogoshahay sida gaadiidka ciidamada iyo gaadiidka madaxda u shaqeysa dawladda iyo cid gaar ah oo la fasaxay dad badani waxa ay sheegayaan dad badan oo aan lugeyn jirin inay ka faa'iideysanayaan inay markan lugeeyaan dad badan oo ay cabsi ka haysay inay magaalada dhex lugeeyaan laakiin u arkaa ciidamada ammaanka oo daadsan wadooyinka qaar oo imika u arkay inay lugeyn karaan dad badanina goobihii shaqada maxay fasax bay ka galeen waxa weeye maanta oo kale waxa weeye waa fasax berri oo kale waxa weeye waa fasax imika waxaanu joognaa jidkan aynu taaganahay waxa weeye wuxuu aadaa gagida diyaaradaha hotel al-Jazeera ayaa naga dambaysa insha Allah doorashadaasina insha Allah waxa weeye shacabka Soomaaliya waxa ay qabaan rajo iyo himilo ay doonayaan inay u dhabowdo taas oo ku xidhan gacanta xildhibaanada oo runtii yani iyaguna bayna qowsayn ku jira oo yani xildhibaanadaas ayaa maanta shacabku waxay doonayaan kaga dhabayn kara marka xildhibaanada ayaa la rajeynaya inay u dooraan ummadda Soomaaliyeed kii yani hogaamin lahaa insha Allah waxaan soo gudbin doonaa muuqaalo ku saabsan magaalada Muqdisho iyo sida ay tahay iyo maxay socodka gaadiidka maxay sida uu yahay aan hore soconno xagga iyo hotel waxaan مثل هذا إن شاء الله ويسوسن نقول دونا إلا يو
المغربة كدب إن شاء الله. السلام عليكم.